السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيات كحنا القناة كنا حمد دار قدني سودا وهذا ما أنت وحنا كهل دونا ليكي وتاجر سنة دونك أي تاريخ ذو حستو منسى موسى ونيكي وتاجر سنة أي تاريخ ذو حستو أرجع منسى وبقر وحون حكومة جري بقرتو يدي مالي سنة مركي أهيد كن صدح بقلبيتو منكي إلا كن صدح بقل صدني تطبدي ميلادي بقرتو يداس أوكاكم نيد وضمد حلي كانوا يقان موريتانيا سنغال غامبيا بوركينا فاسو مالي نيجيريا iyo Chad Mansa Musa ayaa caan ku noqday gudashadiisii xajka sanadu markay ahayd 1324 miilaadiga waxaana la tagay in ka badan 1000 adoon sidoo kale waxa la sheegay inay gaarayeen 60000 iyagoo sitay 80 geel oo ay ku raran yihiin 300 oo baan oo dahab socdaalkiisii xajka waxa uu ku sii hakaday Alexandria iyo Qaahira oo kamid ah dalka Masar kaas oo ku soo jiitay Carabtii iyo reer galbeedka deganaa markay arkeen naxariis badnidiisa waxa la sheegay intii ugu badnayd dahabkiisa inuu siiyay dadkii ula gulmay gaar ahaan kuwii faqiiriinta ahaa sidoo kale waxa uu ku caawiyay dhisidda masaajidyo soo noqodkiisa waxa uu soo kaxaystay culimo iyo injineero kuwaas oo ku caawinayay dhisidda goobo taariikhiya kuwaas oo hadda ku yaala magaalooyinka Gayo iyo Timbuktu waxay noqotay magaalo ay dadku uga yimaadaan Yurub, Aasiya iyo waqooyiga Afrika si ay wax uga bartaan sidoo kale ugu noolaadaan amaba uga shaqeystaan Mansa Musa ayaa ka dhisay magaalada Timbuktu jaamacado madarasooyin iyo masaajidyo sidaas ayaana ku noqotay Timbuktu magaalo diinta laga barto lagana shaqeysto Mansa Musa waxa uu dhintay sanadu markay ahayd 1337 miilaadiga waxaana la wareegay boqortooyadiisii wiilkiisii Makaan intaas ayayna waqtahay waxaan filayaa inaan waxun kaaga faa'iideeyo maanta taariikhdii Mansa Musa وأنا كلانتي ضمبي والسلام عليكم.